لكن إيه نلاش هذه نفتي ذنبي كشة مركي نن إنه جمادة أي شيء قبر نينكو حمان جرا با يدا ugu horeysa gabar la xumeeyo أنا يا طبعا أنا مركي لبعد لا نفتي هذا ذنبي كشة كان قرية إيجا وريجا قدرت ما waxa u taqaana walaal macaan qof uu dambi galay qadar baa ku dhacay oo u jeedaa maxaa tiri dhibaataysan inay tahay u jeedaabay maxaa tiri inaad ku cilmana ku dhacday dad qadar ku dhacday inay tahay u jeedaaye adiga laftirkaagu sabax ka yihiin adeere walaal quruxdaydi dhageyso qadar waxa la dhahaa qofku markii intii mootal qafl ku soo boodo dhinto wiil ka dhinto gabar ka dhimato ilmo ka dhintaan gaar la rogmada qadar la dhahaa laakiin tan ayada ninka u yeelshay ayada u ogolaatay ayada saan bahdilka ayada ogolaatay wax qadar la yiraahdo meesha ma yaalaan qadarta ilaahay ha u nisbaynina wax walba xun nin iyo naag qoriyeynayo isnacay ilaahay ha u celinino waa qadar ha oranina qadar ma ahana waa ogolaashaheeda halow isma qalma jiraa aqaldan abay fiiri dadku isku mid ma aha dadna ka tagaan dhibaatada dadna markii ay xaalad xun gaaraan bay ka tagaan marka dadku isku mid ma aha abay qofku markii taasa ku dhacday markii wallahi waxa aqaana gaalkacyo gabar isku cidnahay oo inta ninkeeda la guursaday naxadintay ka qaaday iyo xanuunkay ka qaaday wallahi say sariir u saareed u dhimata aqaana iska dhaaf wax kale qofku uu nixi karaa bini aadam qofku uu nixi karaa balaad barashara jiro maya gabadha maxaa ku dhacay baa tiri intuu ninka hee gabadha ninka waxay boosasay lahayd qaadkay gadi jirtay laba boosay lahayd intuu gatay uu gabar guursaday arooskiisii ayadoo joogta meeshii maqsinkeedii qaadka oo qaad u soo degay arooskiisii loo soo sheegay madaxa dhiig uga furmay isbitaalka la dhigay 4 bilood ay taalay waa laga soo saaray guriga la keenay bara la seexoogaa noqotay way joogi jirtay 2 sano nooleed oo sariirta iyo musqusha u dhaxaysay kadibna way dhimatay marka qofka amar ilaahay way ku dhici karaa hadda sababteeda la saaray waa la dhigi karaa hadda isna gabadhaana hadda waxa dhici karta xanuunadaas oo kale inay ku dhaceen aba qofka bini'aadamka uu nixi karaa qadar waay waxan qadar قدر واي قبل والفمين كنا بجبنا كرع لقى دلا قدر دماش لبير مديه كرع مدة بس ناس ترى مدة بس ريار باينا ده مدة بس مدة بس دماش محل كرع والله ما يبغى لقى هريا هالدا يبغى لقى هريا انتصار كل جاي السنة جاني جه هريا سكوت صعود جاي السنة أنا ودي أنا عصر يسوي ساكي كل جميع قعدت كوضع والله هذا يفهمي كل اللي قاعد كوضع قلامي أنا واربا كو قلامي هذا بغرته هذا habro wada sidayna niman sarinaha ugu saarnaayeen waxay leeyihiin haa nacasulayso waa xaasidad way xaasidad miihiye inaad wallahi qofka qalbi fiican ma leh gabar la xumeeyo markay aragto dhiiga ku karasaas wallahi billahi aniga inay iyadu is xumaysay baa hadda ciil iga haya oo waxaan u qalmin cimrigeeda gelisay أنا يدا عيل جاية سويت عيل كي هي وحواي أيدا كأجلاتين نحن أنا قل منو بهدلو أيدا مجا تعترى الأجل أو عانة أيدا نايا نسكشي شمود نايا دقيسو نايا حاجة وسط دقيسو ملاي قرمات قرب كودا تاي ناشيل أي حاجة ينادر دقيسو الله إله باي قدك ملاي قاس إله باي أنا عسول يسوي وكان عيمنا وايقو كاتك تروحي إلهي بقى إني ملايقة يقدر جاي ليه ما لها دقيسو هاي كسر واحد هذا ويق وضع هاي ويجا يسوق هاي ويجا إن أتقشوا وقرت لكن قفك وقل كرا قارنا وشير كرا قدرت تعسل هذا قدرت الأدية صرت تشوشي جورك يقفك ناس مقاربة بوي وقبل الدردري مسنين بقى انتو ناك الراعي ايه هادو نوع ناك الراعي ميقا ناك لغا راعي معيبا قدر ما داس اس بروجرام واي ديل واي نينكان wuxuu go'aansaday inuu naagtan ka tago naag kala guursado ayadana waxay ahayd maalintuu damcay inuu saliida u qiyaaso inay saa inta u fiiriso ee tiraado anaaba qalad galay shalay oo garbasaarkeeda dhinaca kale u gadisatay ahayd حشرات اسكجفتو هادينا قدر هين ما اوغالي ku dhacay soo ogaal la'aan kuma dhicin ma ogaal la'aan ma way ogeyd ikhtiyaar keeda way ogeyd kas iyo maanay u ogeyd wayna fadhiday
هذا ما مقلي ساكن هذا ما عن سوق هذا بديش ده قولونك lagu qulaamiyo qolooyinka yeeri kala ogow warka ma la siisan kadib waxa meeshii dad badan jooga نعيم الله اللي جاي إن هذا دقيقة السوق إلهي بان كوكو دارش نعيم إنتاج جشيد قبل ماشي هسا صادقتي إنتاج جشيد هستا أي نينكا أقاطي بل برشيد دقيسي تضمنوا عن دقيسي بالغيا بين كل جيراني I'm sorry abayo heestaas 3 sano ka hor ay qaada Princess Style waa ka xumaa xalay maxaa gabadha loo bahdilaan ka hadlaynaa waxay sheegaysaa kuwii kala go'een iyo rabay in xiriir ku soo gaabto gorbeed waa hore dhabaada ma هذا وي أركت وي أوجد وي fanaanada ka codsatay waxa ka codsatay wariyaha nimca sabriya ii qaadayso waraysiga soo daawa soo dhameystiran waa soo daawaday dhageyso eedo xilligaas waxay dareentay kuwii kala go'een iyo rabay in xiriirku soo gaabto daas bidayto dida la isdilay baa la kala tagay kadibna waa la isku soo laabtay geeyo sanaag maygeedan aa kululaynaysaa waxa ma qabtaan inaan dadka Soomaaliga loo qoranaa anaga qornaa geeyo maygaaga xoog ku qaadanaaga ilaahay ka geeyo meegaaga jiido in adeer jiido islaamahan kullu igu weyn waa sixtraa daawa ayeeyooyinka baliya ku soo hawaari laakiin wuxuu ma fahmayaan hawaarka inaan toos uga qaato garanaysa waa islaam dhamaantiin horta dad wada jeclaha meesha saaran ilaahay sharfo abaayo horta mowduuc waxa ku soconay banaal iyo fanaanada maxaa isku keenay maalintii la balabinayo gabadhaas in la keeno gabar fanaanada anagoo qolka maxkamadda joogna oo la falanqeynaayo macal gabadhu ninku guursaday macal heesta macal maalintay bilaabeen noloshooda falanqa aan ku jiidnay waxaan ay maatay gabadhii ninku qabay gabadhiina waxay aniga halayga saaro reerkan booskooda kuma jirin gabadhaas oo la furay baa ninkaas helnay waxban aniga gabadhaas uma yani ciil iyo caro iskuma hayno iga dhaafa falanqada umul baan ahay haddaan dhalay ma fahantay hal bila beriya umulanahay dhaxday halkaas gabadhii way is cadaysay gurina inaysan ka dhicin oo ninku guri ka dhicin bay sheegtay warqadiiba ee manaa usoo dirtay halkaas markay tiyareed ku baxday anaga waxaan ahnay briefs baan u baahannahay istaahil waa inay meesha noo imaato waa inay wixii ibka ku dhacay noo sheegto maxaa saa u fool sameeyay gabar yar qurux badan bay ahayd rifrifkan iyo daruuftan ka muuqata yani ninkii ay kala tageen dartiis ma umrigood waa inay noo imaato anagoo halkaas joogno abkay reer jigjigaan noo imaadeen gabadhan keentay oo soo hoday oona u soo sheegin dhahday waa lagu rabaa horta waxaan ahnay waan waraysanayna anaga waraysiyaaba ka rabnay fiiriya meesha caawinaad ma oolin gabar la dhaho habboon oo fanaanada oo reer jigjiga ah oo fanka iskula jiri jireen oo waliba riwaayada dhigi jirtaan gabar ma falo garan laakiinse baa noo imaato dadka qofka maxkamadda joogay away waxay tiri gabadhaan anaa saaxiibtay tahay anaga intaad kula soo maagnay gabadhaan way dhibaataysan tahay ka daaya falanqadaana ku muujinaysaan Princess waxa waaye horta maxaa dhifay oo wajiga maxaa ka duubtay oo saas markaan aan waxay tiri waagii xagga jigjiga joogtay kiniinka big power cuntay kadibna kiniinka dadka biyo geliya waa laga daaweeyay xataa waxa la geeyay Turkiga wadan kale la geeyay dhahaysay wadamo laba wadan baa la geeyay nolosha halkaas ay ahayd ninkii markuu ka tagay way isla hadashay gabar iska aamusan waaye dhibaatadeeda ma sheegato sidaan way anagoo meeshii marayna gabadhii emotional bay naga dhigtay waxay tiri Princess way dhiban tahay dadka hadla ma ahan caawinaad bay u baahan tahay garab istaag bay u baahan tahay dumarka Soomaaliyeed gabadha inaa garab istaagno waay haye orod noo keen ma wici kartaa hawa wacayaa bay tiri way baxday markay baxday way soo wacday waxay tiri Princess way isdiyaarinay ma fahantay oo way idii imaanay markaas anaga maxaa ugu yeeranaynaa inaa maxaa la dhahaayay markii la wareysto kadib Princess si maaragtay gobol qof gobol loo garab istaago ma ahan war Princess baa tugsanaysa kusoo tuuro ma ahan cimaamad loo diyaariyo shaashada laga furtiyo follow la siiyo يعني qof fanaanada oo u qalanta oo magac dheer leh oo inaysan maxaa la dhahay naag oo nin ka tagay u dhintay inay tahay inaan dadka tusno baanaga waqtigaas diyaar u ahayn heestana waan falanqeynaynay oo waxaan dhahaynay kuwin MMS naagta dumarland meel dheer ka keentay bay magacii ku soo dari weysay halkaasna anagu u liiro ka wadanay wadanka dumarlandnimada ama fahmaysaa in kuwintii la xuso halka ayadoo shirkada maraysa gabadhi way baxday war keenaayay tiri gabadhana caawinaad bay u baahan tahay manaal oo bartaas fadhisa ba ilaa qolku galabtii buu sii furnaa fiiriya makhribkii allah laba sac laga gaaraayay manaal waxaa laga dhaadhiciyay manaal gabadha caawinaad bay u baahan tahay manaal waa lagu keenaa islaamo kaloo reer jigjiga abaa imaadeen annagaa keenayna gabadha caawiya ma luuqa loo galay manaal wadabsiyaa laga qaatay manaal marka reeda markay meesha soo fadhiisanayso qolkaas ani ma arkin qolkee oo gabadha leedahay naa fadhi lagu caawin lahaa يعني just waxay u maleynaysaa gabadhii oo wadkii laga soo dhaadhiciyay oo qoftii la soo quraamiyay in la keenay markii dambena manaal cod waa tan isqabanaysa laakiin anigaas waxaan diyaar u ahayn gabadhaas inaan caawino oo saboodno oo maxaa la dhahaayo oo shaqada ka qurxino oo cimaamad loo diyaariyo oo la wareysto warku ma idin dhacay hadda
geenya beriyahan saas meel kasta u geeyo wareegsan fahmaysaa geeyo meesha misunderstanding inay ka jirto insaar baa u kaadi fiiri misunderstanding inay meesha ka jirto waa sheegnay laakiin la hadalka balaaq fiiri erayga se u tiri baa qaldanaa waxaa laga yaabaa Yuroway inuu saasa language dhihin Yuroway maadaama sug geeyo sug ka sug ba kasaan dhamaysan waa soo kutina dhegeyso geeyo manaala u imaana geeyo waxaa marku rabtaa maanta dhegeysanayo inaad manaal maya manaala usoo gudbayaa may manaal gasoo ayadoo gudbin ogeyd maya geeyo ani waa iga isafir ani fadhisaaka dharka buluugan waa necbaa moogta geeyo waxba hay maqbo waa isognahay dhegeyso de horta waxa abaayo ina cabta waa please isognahay please waa ku jeclaa geeyo beed wala kula markii khadaba ay weydiisay oo la yiri gabadha waan kuu keenaynaa oo ay aragtay gabadhu inay ka dhacsan tahay manaal waa naag weyn waa naag reer magaal waa naag qolka taqaana maxay isku kala bedel way arki weyd meesha inay wanjalaad ka jirto absolute ayaada xanta dadka ku aniga xataa heshiiya manaal xanta taas dadka waa ku heshiiya fiiri habrayo manaal xanta aniga dadka ku fiiri heshiiya manaal waxaa la rabaa inaad tiraahdo berisa baa soo dhawow fanaanadeeni baa tahay qolkaa noogu imow shalay meeshaasaan kugu falanqaynaynay waxaan idhi ma gabadha naloo keeno gabdhaan kuu soo dirnay gabdhihii ma kuu imaadeen maxay ku dhaheen inay absolute wadadaas martaa la rabay manaal ma aqaan maalintaaseeto ma toddobaadkii bay ku jirtay ma ciyaalkaa ka alqaylinayo fasaxyaa lagu jiraa manaal wixii ka qaldaman waa inay imaato waa inay sheegto wadadii gabadha la rabay inay kula hadasho qof kastoo bini aadan hadda bersis style iska dhaf gabar fanaanada oo geyga Soomaaliya dhan laga yaqaan xataa ilaa Soomaalida taa maxay toddobaadka Sacuudiga hadda kor ugu yiri toddobaadkii mar hore ma dhaafto toddobaadama haysato naa suldaamada saasadi suldaamada gabar yar waaye sawirkeeda wajiga ka saaraya dii kale wow dhegeyso suldaamada ha laga fogaado ha laga maya fogaado suldaamada abaa iyada xanta naftarkeeda manaal ku heshiiya dhuxul shiilato dhuxul sidata iyo anyax shiilato way isku baahan tihiin xanta dadka ku heshiiya manaal abaa qof bini aadan waaye markaas waxbaa jira ma fahantay laakiin manaal markii dambe way isqabatay laakiin hadalkii ay rabay inay kusoo dhaweyso uu ka yara qaldamay manaal waa inay noo imaato nolosha ku tiraado warsaasay waxay iga noqdeen teleefanada lagu badiyey maqaylada laga badiyey wax la jira dee meegana waa idin siyaada u mahadsantiin inta ay dhegeysateen kolba ana xanta yareed ay ogaa baan la